dowladda Mareykanka ayaa ka reebtay khariirada Jamhuuriyadda Somaliland 10 dal oo Afrikaan ah oo ay ka mamnuucdeen dad sita dalku galkooda ay socdaal ku yimaadaan wadanka Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa 4 bishan barahooda bulshada ku daabacay khariirada Soomaaliya waxaana ka reebtay Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal madax bannaan oo xasiloon isla markaana ay ka jirto dimuqraadiyad iyo dowladnimo shaqaynaysa. Tan iyo markii uu maamulka Mareykanka la wareegay madaxweyne Donald Trump waxaa aad u korodhay dhaqdhaqaaqyada ku wajahan in Mareykanku aqoonsado dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo noqon karta xulafo muhiim ah oo Mareykanka ka taageeri karta ka hortagga saameynta Shiinaha ee mandaqada Geeska Afrika iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah oo si joogto ah isugu soo fidinaya dalka fashilmay ee Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal ayaa socdaal qaatay 2 toddobaad kaga soo laabtay Washington waxaanu la kulmay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo xildhibaanayaasha macadyada siyaasadda Janguya oo uu kala hadlay sida loo sii xoojin karo iskaashi ballaaran oo dhexmara dalka Somaliland iyo Mareykanka. sidoo kale waxa maamulka xukuumadda madaxweyne Trump ku sii xoogeysanaya diblomaasiyiinta waaxda arrimaha dibadda ee sida joogtada ah ugu baaqaya in Mareykanku ictiraafo Somaliland oo wadan xasiloon ah oo ka hanqaaday dimuqraadiyad naadir ku ah mandaqada Geeska Afrika.